kulanto waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkuroon galka wararka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qaar kamid ah shirkadihii sanadkan ku guuleysatay adeega xajka oo musuqmaasuq lagu sameeyay Soomaaliya iyo Midowga Yurub oo kala saxeexday heshiis ku kacaya 42 milyan oo euro dabageed oo wareysi culus bixiyay sida waaro ku jooga Beledweyne dadkii ka dambeeyay dilkii taliyihii ciidamada booliiska gobolka Hiiraan oo la soo qabtay qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusub tahay daawade waxaa saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya guddiga kala saaridda xamalooyinka u soo tartamay fulinta adeega xaj oo ay magacaawday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa lagu eedeeyay inay ku kaceen musuqmaasuq xoogan guddiga ayaa lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen qoondada qaar ka tirsan shirkadihii ay markii hore u sheegeen inay ka mid yihiin shirkadaha ku guuleystay inay sanadkan qayb ka noqdaan fulinta adeega xajka shirkadaha qoondadooda la musuqmaasuqay waxaa ka mid ah shirkadda African Express oo sheegtay inay ku guuleysteen ka mid noqoshada liiskaas balse aysan jirin cid ilaa iyo hadda siisay qoondadooda madaxa shirkadda Africa Express ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dhibaatada inta leeg loo geysto shirkadooda waxay madaxda ugu sareysa dalka iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ugu baaqeen in xaqooda la siiyo African Express ayaa ka mid ah shirkadihii ka soo muuqday liiska wasaaradda ay soo saartay ee sanadkan nasiib u yeeshay inay helaan adeega xajka sida ka muuqata liiska wasaaradda ka soo baxay dhawaan dawladda Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa munaasabad u goobjoog ka ahaa ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay waxay maanta si wadajir ah ugu saxiixeen heshiiska maalgelinta mashruuca dib u dhiska wadooyinka gobolada dalka oo ay Midowga Yurub ku bixinayso 42 milyan oo euro wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Mr Nicholas ayaa heshiiska si wadajir ah u saxiixay mashruuca dib u dhiska wadooyinka gobolada Soomaaliya mashruuca dib u dhiska wadooyinka gobolada Soomaaliya ayaa qayb ka qaadanaya sare u qaadida awoodda hay'adaha dhismaha wadooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed mashruuca ayaa dib u dhis loogu sameeyaa laguna dayactiri doona 55 kilomitir oo ka mid ah wadooyinka isku xira dalka dhismaha wadooyinka dalka ayaa noqonaya laba guul dawladda federaalka Soomaaliya waxay si xoogan u bogaadinaysaa taageerada joogtada ah ee Midowga Yurub ay siinayso dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed taageeradan 42 milyan oo euro ah ee dib u dhiska wadooyinka waxay si xoojinaysaa 100 milyan oo euro dhawaan Midowga Yurub ku taageertay kabka miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiir Jamaal Maxamed Xasan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo la hadlay warbaahinta ayaa si kulul u dhaliilay madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo sheegay inuu hareer maray dastuurkii u yeelay maamulkaasi in wax walba oo ka dhaca Beledweyne uu mas'uuliyad ka noqon doono lagana wareysan doono arrimahaasi shakhsi ahaan ayuu sheegay inuusan duulaan ku ahayn halkuu madaxweyne Waare kaga sugan yahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagana hadii la soo weeraro oo isdifaaci doona waa sida uu hadalka u dhigay Dabageed dhinaca kale Dabageed ayaa sheegay in xilka looga qaadan si sharci ah isla markaana shacabka gobolkaasi ay ka tashteen maamulka Hirshabelle magaalada Beledweyne waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waxayna rabshadahan daba socdaan xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed wali waxaan ku guda jirnay wararka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ciidamada ammaanka ee gobolka Hiiraan ayaa xabsiga dhigay shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen dilkii maalin ka hor loo geystay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo saxaafadda kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa shaaciyay in ciidamada ay xabsiga dhigeen dadkii dilka taliyaha ka dambeeyay madaxweyne Waare ayaa sheegay in dadkaasi ay baaritaano ku socdaan isla markaana kaliya laga doonayo in ay cadeeyaan dadka ku amray in ay falkaasi fuliyaan waxa hadda la hayaa dadkii dilay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Hiiraan waxaana la doonayaa dadkii faray in ay falkaasi fuliyaan waana la soo qabanay cidna looma dhaafayo wixii halkan ka dhacay ayuu yiri madaxweyne Waare xiisadan ayaa wali ka taagan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana soo farageliyay dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Djibouti ee ku sugan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan
odayaasha waxgaradka ee siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa ku hoolan sidii Yuusuf Dabageed loo qancin lahaa inuu xilkaasi wareejiyo maadaama wareegto loo qaaday. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.